waxa uu ahaa bandhig farshaxameed isugu jiray sawir gacmeed toos loo sawirayay iyo sidoo kale sawirro ku saabsan nolol maalmeedka bulshada ee magaalada Burco ku soo bandhigeen Nujuum Art iyo sidoo kale Dr. Cadnaan Cabdo. farshaxankan lagu soo bandhigay munaasabadan ayaa ahaa mid ay aad u xiiseynayeen kasoo qaybgalayaashii madashani. sawirada la soo bandhigayna waxay inta badan muujinayeen shaqooyinka maalinlaha ah ee bulshada Soomaalida iyo sawir gacmeedyo laga soo minguuriyay dhacdooyin dhacay. Dr. Cadnaan Cabdo iyo sidoo kale Nujuum Art oo ah soo bandhigayaashii sawir gacmeedadan iyo sidoo kale sawiradan kala duwan ee laga qaaday bulshada ayaan wax ka weydiiyay bandhigan iyo ujeedadiisa. magacaygu waa Cadnaan Cabdo Maxamed wadmaadsantahay Khalid. barnaamijkan aan maanta halkan ku soo bandhigayno galabta ilaa caawa waa barnaamij bandhig sawireed iyo farshaxan iskugu jira. waxaan soo bandhigaynay sawirada anigu aan qaaday street photographiska ama ka turjumaya nolosha maalinlaha ee bulshooyinka Soomaalida kala duwan gobolada iyo meelaha kala duwan ku kala dhaqan siday u nool yihiin ama siday nolol maalmeedkooda ay tahay in soo gudbiyo moolkayga isagoo isticmaalayaan moolkayga ku qaado nolol maalmeedka bulshooyinka kala duwan ee Soomaalida una soo gudbiyo bulshooyin kala duwan iyaguna Soomaalida iyo guud ahaan caalamka oo soo gudbiyo. marka arintaas ay maanta oo ay tahay waliba markii ugu horeysay ee gobolka Togdheer lagu soo bandhigo carwo sawireed ama barnaamij sawireed ee dadka iyo mataqaana ay isku dhaxgalayno iyo dadka wax sawira aan fahansiinayno mataqaana muhiimadda ay leedahay in aan hawshan aan wadnaay bulshada u hayna muhiimadeeda aan fahansiinayno bulshada. ugu horeyn magacaygu waa Nujuum Axmed Xaashi. bandhigan maanta Burco ku soo bandhignay waxa weeyaan bandhig farshaxameed ka kooban sawir qaadis iyo sawir gacmeedba. marka waxaan ku soo bandhignay labadaaba ka koobnaayeen dhalinyarada magaalada Burco kula wadaagaynay si bal ay faham guud uga qaataan waxaan uu yahay farshaxanku ama haduu noqdo photographinka ama haduu noqdo sawir gacmeedka. marka run ahaantii magaalada Burco waan lagu soo dhaweeyay waana barnaamij aad u qiimo badan boo dadka way wada xiiseynayeen. farshaxanka ayaa ka mid ah hibooyinka rabbaaniga isla markaasina lagu gudbiyo fariimo kala duwan. Nujuum Art oo ka mid ah farshaxanka daayarta ee Soomaalida ayaan weydiiyay kaalinta uu bulshada kaga jiro farshaxanku. run ahaantii farshaxanku bulshadeenu aad uma aaminsaneen kaalin weyn kaga jiro haddana waa kaalin qarsoon aanay dareemeyn waayo wax kasta oo la design gareynayo ama la naqshadeynayo wuxuu soo hosgelaya farshaxanka sawir qaadis haday noqoto fiidii duubis haday noqoto qaybaha kala duwan ee hal abuurka farshaxanku soo hosgelaya laakiin dadku ma aaminsana. marka xamsana bulshadeena qayb weyn buu uga jiraa farshaxanku. bandhig farshaxameedkan iyo sidoo kale sawirada lagu soo bandhigay magaalada Burco ayaa noqonaysa markii koobaad ee lagu soo bandhigay magaalada Burco waxaana uu bandhigani si weyn u soo jiitay indhaha bulshada kala duwan ee gobolka Togdheer. Khalid Bakayle wararka fogaan aragga xorta Star Burco.